Bismillahirrahmanirrahiim. Halkan waxaan ku duubayaa gabaygaasoo ku saabsan beelay isku laayay deegaanka gobolka Sool. Marka gabayguna wuxuu odhanayaa in dhaweyd bay miileeda gabay anigan marinay maqal oda waagan arkaan muuse tixii midhahana salaam baan ugu tagaa nabadda maantaas cali aad waa mariiqin ma safar weyn intaas ba misaal igu filan magaca suugaan milyuumad hore dagaal maato loo dhigay mirir bay ka qaadeen kuwii moolka soo raray muujadaha guuxiyo waqtan magac wadaagna masalooyin dhowraan qaba maandhow ka badan maankaygu ima siin kara aamus waa maqale maluugaha wareegiyo cilmigu waa midkoo kale macna darida aadmigu waa maanta daba jooga geeli maraagiyo barta quraca meegaaga marka kuma nagaada iyo muunaday tahay ciinku macaan sii bidaa mood ku sii rida idina mari kadoodaan muuqa eragiina khayrkiin macaash buu helaa magaca dunyada ingiriis mugin buu galaa hindiskiisii maraakiibta quustay dad baa maale faraxdi iyo qof walaalkii muwaafada gashay magac ka dheera mid ku gafo waayo moodku ka adeego murti iyo baanisa ragaba lagu muqurshaayay ama maanka aadmiga lagu macneeyaa mufti iyo wadaadka dhibta maara oo jaray haduu bari ma yahay maanta waa eber reernimo macaash laguma helay miska reer hebele masxuuba laga dhaxlaa milayga naareed qof mislina dilku waa maanac iyo ciile labada midkood ka dhintaa mara la saara isku mida meedkay dilay ubadka maaweysha kala midabka waayaha marti meel isugu geeyay isku muuqda kala muunad leh meerta dacalkooda qarniga mataana Socdiya muruq shaqeynayay emelkada reer hebel maalka laga dhoofshay aniga mahigaana iyo muujid soconaysa gudubtii maalinteedii sidii maagado kale war nabadu meeraha khalqiga way macaantay ilaahay intaad magan gashaan maanta kala joog wabillahi tawfiiq.